qisadan wallaahi casharo fara badan ayaan kala baxay. Waxaa jiray boqor aad u jeclaa ugaarsiga, markastana ugaarsi ayuu u bixi jiray. Boqorkaasna markasta waxaa la socon jiray nin wasiir u ahaa. Ninkaas oo ahaa qof aad u iimaan badan, aaminsanna qadarta Ilaahay. Markuu arko asxaabtiisa oo ay dhibaato ku dhacaysana wuxuu ku dhihi jiray la'allahu khayran, waxa laga yaabaa waxa kugu dhacay inay khayr ku leedahay ee hawarwarin buu ku dhihi jiray. Mar walbana kelmadaas uu isticmaali jiray oo aad iyo aad ayuu u aaminsanaa qadarta Ilaahay iyo qadaaga Rabbi. Mar kasta oo uu arko qof dhibaato ku dhacdayna wuxuu ku dhihi jiray la'allahu khayran. maalin maalmaha kamid ah boqorkii ugaarsiga jeclaa ayaa ugaarsi u soo baxay. Sida caadiga ahna waxa soo raacay ninkii markasta daba socon jiray, waxaan uga jeedaa wasiirkii. kadibna boqorkii oo ugaarsigii ku guda jira ayaa hal mar meel hog ah oo aad u dheer ku dhacay. markaasuu ninkii wasiirka ahaa la soo booday. boqoroo waxa laga yaabaa inay waxan kugu dhacay ay khayr ku leedahay, la'allahu khayran. boqorkii baa ku dhahay maxaa ka khaldan, khayrka aad sheegaysaa waa maxay? hog baan ku dhacay. kadibna wuxuu arkay boqorkii inuu dhaawac weyn soo gaaray. boqorkiina dhinacii qasriga ayuu u cararay. dhakhtarkii markuu u tagayna dhakhtarkii waxa uu ku dhahay far baa laga goynayaa sababtoo ah dhaawac aad u halis badan ayaa ku soo gaaray. ninkii wasiirka ahaa oo boqorka ag taagan ayaa waxa uu iska dhahay la'allahu khayran. boqoroo waxa laga yaabaa farta ka go'day inay khayr ku leedahay. ninkii boqorka ahaa markan uu adkeysan waayay ninkan markasta iska dhahaya la'allahu khayran, waxaanu mooday boqorkii inuu ninkani ku faraxsan yahay boqorka inay fartii ka go'day. boqorkiina askartii wuxuu amray in ninkan la xidho, xabsigana la geliyo. markii xabsiga lagu sii waday ayaa ninkii wuxuu iska dhahay wasiirka ahaa la'allahu khayran, xataa xabsiga aad igelinaysa boqoroo waxa laga yaabaa aniga inay khayr ii leedahay. ninka boqorka wuxuu dhahay kani miyuu waalan yahay talow? wax sidaa looga imaadayba ayaa magabacdi boqorkii ugaarsigii ayuu ku noqday. isagoo ugaarsigii ku guda jira ayaa ciidamadii ilaalinayay ayuu hore uga soo baxay. kadibna ninkii boqorka ahaa waxa qabtay qabiil markasta amba sanad kasta u qala nin ay Ilaahay u yaqaanaan, qof bay u gowracaan. waxaanay dhahaan Ilaahayaga waxaanu ugu dhawaanaynaa inaanu qof gowracno oo aanu u qalno. markanna way soo ugaarsi tageen iyagoo raadinaya qof ay gowracaan, waxaanay heleen boqorkii. waxay dhaheen maanta ugaarsi weyn ayaanu helnay oo Ilaahayna waxaynu u qalaynaa oo aynu ugu dhawaanaynaa nin boqor ah. kadibna way soo kaxeeyeen iyagoo u keenay hogaamiyahoodii. waxaanay ku dhaheen maanta waxa aan soo helnay ugaari weyn oo waxaanu soo qaadanay nin boqor ah oo aanu soo afduubanay. ninkan ayaynu Ilaahayna ugu dhawaanaynaa. hogaamiyihii ninkii wuu sidaa u eegay, kadibna wuxuu arkay ninkan la soo qabtay inay fardhan go'an tahay. kadibna ninkii hogaamiyaha ahaa wuxuu dhahay nacdal inay inagu dhacdo miyaad rabtaan? sidee Ilaahayna ugu qalnaa qof ceeb ku sugan tahay? annagu waxa aanu rabnaa Ilaahayna inaanu ugu dhawaano qof aan wax ceeba aan ku sugnayn oo aan dee ilaa aan far la'ayn, qof dhammaystiran ayaanu annagu Ilaahayaga u qalnaa bay dhaheen. kadibna ninkii waxay ku dhaheen ordo iska tag, meeshaad ka timina ku noqo. boqorkii isagoo ordaya ayaa waxa uu degdeg ku imaaday qasrigiisii. markiibana wuxuu u tegay ninkii wasiirka ahaa oo xabsiga ku jira. waxaanu dhahay kelmadii aad markasta dhihi jirtay la'allahu khayr, maanta ayaan ogaaday inay runkaa ahayd oo fartii iga go'nayd maanta waxay iga badbaadisay inaan geeriyoodo, oo maanta fartaas ayaa sabab u ah inaan noolaado. laakiin waxaan ku weydiinayaa buu dhahay wasiirow, aniga fartii layga gooyay khayr bay ii lahayd oo mowd ayay iga badbaadisay iyo dhimashee. adiga xabsiga lagu geliyay, markii aan xabsiga ku gelinayo waxaad dhahday la'allahu khayre, sidee khayr kugu noqotay? wuxuu dhahay markasta boqoroo waan ku raaci jiray, kaamana hadhi jirina waad ogtahay. markastoo aad ugaarsi tagaysana waa ku raaci jiray. maanta haddaanan xabsiga ku jiri lahayn waan ku raaci lahaa. kadibna waxa ina qaban lahaa kuwii adiga ku qabtay ee dadka gowracayay. adigu ceeb baad lahayd oo far ayaa ku go'nayd oo waa lagu soo fasixi lahaa, laakiin aniga layma soo fasaxeen ee way gowrici lahaayeen buu dhahay. marka aniga inaan xataa xabsiga ku jiray khayr bay ii lahayd, haddana inaad soo badbaaday la'allahu khayr.
qisadan marka aad dhegaysato waxaad soo xasuusanaysaa aayaddii uu ilaahay dhahay facasaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum wacasaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum. waxaa laga yaabaa shay aad jeclaysanaysaa inuu shar ku yahay, shay aad necbaysanaysaana inuu khayr ku leeyahay. markasta aamin oo noqo qof qadarta ilaahay ku kalsoon. dhibaato kasta oo ku timaadana waxaad ogaataa inuu khayr ka dambaynayo. asalaamu calaykum.